walaalkeen ninka la yiraahdo Cabdo Share oo ku aroostay magaalada Muqdisho oo wiil yar oo dhalinyaro ah oo talent fiican leh oo talent fiican ummadda Soomaaliyeed u soo gudbiya ayaa wuxuu ku guursaday magaalada Muqdisho aroos buu gabar Soomaaliyeed la galay oo aad looga qayb qaatay dawladda dhankeeda xagga shacabka dhalinyaradii isku shaqada iyo isku camalka ay ahaayeen markii dhan walba laga fiiriyo aad baa loo garab istaagay nin iska miskiin buu ahaa laakiin talenti codkarnimo leh oo wararka markuu soo deynayay iyo runtii markuu waxyaabo soo deenaya aad loo jeclaa oo dadku aad u jeclaayeen buu ahaa raalina iga noqda hadad buuq maqashaan waxa maanta aan ku dhex duubayaa clipkan guriga dukaanka dhexdiisa ayaan ku duubayaa oo dukaanka ayaan joogaa dad badan baa iyaga marmaraya marka iga raali noqda haddii codkayga dareentaan inay codad fara badan ka ag buuqayaan marka wiilka yarka ah waa wiil Soomaaliyeed runtii waa wiil yar oo muslim ah waa wiil yar oo aabba sida uu ku sheegay aabihii uu nin diinta islaamka wax ka yaqaan yahay runtii markii la guursanayo ee qofku uu guursanayana waxa weeye waxa loo fiiriyaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan xataa xoolo looma fiiriyo quruxna looma fiiriyo reer hebel iyo reer hebel buu yahay looma fiiriyo liana dadka dhammaantii way wada siman yihiin nabigana wuxuu leeyahay dhammaantiin waxaad ka imaadeen nabiyullaahi aadam kullukum min aadam wa aadam min turaab aadamna turaab iyo carra ayaa laga sameeyey marka qof carabi iyo cajami ma kala fadli badna waxa uu lagu kala fadli badnaadaa keli ah oo lagu kala sharaf badnaadaa bas ah dadku inay maaragtay yihiin dad oo taqwada Ilaahay ku kala badan qofba qofka uu ka taqwa badan yahay ayuu ka karaama badan yahay ayuu ka sharaf badan yahay ayuu ka nasab fiican yahay qofba qofka uu ka cibaado yar yahayna uu ka nasab hooseeya ama wax la yiraahdo waxyaabaha Soomaalidu ay sheegaan hebel ba midgaan ah hebel ba tumaal ah hebel ba jareer ah hebel ba macna fulaan ah waxyaabahaas oo dhan waa khuraafaad runtii waxaan arkay wiilka aad baa loogu dulmiyay rag waxaan arkay waaweyn iyo naaga dumar ah oo intay soo fadhiistaan Facebooka ama meelo noocaas oo kale ah aad ugu caraatamaya oo u caayaya afkiisa wax ka sheegaya ilkiisa wax ka sheegaya maxaan ku dhahaa abuurka qaabka Ilaahay uu abuuray wax ka sheegaya da'diisa wax ka sheegaya timihiisa wax ka sheegaya runtii manaasib ma aha markii uu codka soo gudbinayay ee uu barnaamijka daadihinayay aad baa loo taageeri jiray laakiin markii uu guursaday waxay noqotay in ninkii lagu caayo nasabkiisa in muuqaalkiisa lagu caayo in dhibaatooyin fara badan loo geysto mana fiicna arrinta noocaasi laakiin Soomaalidu horey bay uga mahmaahayna waxay dhaheen haddaad rabto in lagu caayo guurso haddaad rabto in lagu ammaanana dhima ayay dhaheen arrintaas waa mahmaadaasi runtii waa mahmaah aniga iga gadan oo aad u jecelahay mahmaada waana mahmaayaha Soomaalidu sheegan mahmaayaha ugu runta badan ayay kamid tahay runtii xaqiiqatan anigu arkay ayay kamid tahay marka wiilka dhibaatooyin baa loo geystay anigu waxaan idin sheegayaa horta wiilasha iyo gabdhaha dhaqanka u yihiin inay dadka nasabkooda wax ka sheegaan ama dadka noocaas oo kale ay dhibaato u geystaan horta Ilaahay baa idin arkaya subxaanahu wa ta'ala Ilaahay ka cabsada subxaanahu wa ta'ala sharafna kuma dhaantaan maanta runtii gabdhaheeni isla riwaayad baa laga soo dhigay barnaamijkaas riwaayadda laga soo dhigay waan dhageystay oo ay dhahayaan gabadhii waxaa guursaday nin Jamaican ah aabeed ka soo doontay uu ku guuriyay markii muddo la jooga ayuu gabadhii cunto ay samaysay markaasuu yidhi walaal saaka qureec ma inoo samaysaa Soomaaliya buu kula hadlay ninkii Jamaicanka ay ku waday way yaabtay macnaha ninka hadday u malaynayso inuu Soomaali jareer yahay ma ayna guursateen kaliya waxay ku guursatay inuu yahay Jamaican ayay ku guursatay kaliya ninkaasi hadduu Soomaali jareer ah lahaa maan loo guuriyeen gabadhaas waxaa loogu guuriyey gabadhaas inuu yahay nin Jamaican sababta Soomaalidu Jamaicanka Kenyaanka Etoobiyaanka Afrikaanka kale dib uma arkaan laakiin wiilkooda Soomaaliyeed ee Soomaali jareerka oo runtii ka wada qurux badan kuwaas oo dhan ayay u arkaan wax liita oo dhintay oo waxba ahayn bay u arkaan marka arrintaas waa arrin aad u xun oo dhaqan aad u foolxun weeye runtiina waxaad ogaataan haddaad gabdhihiinna aabbayaalow ama hooyooyino ama walaalow gabdhihiinna haddii aad siin weydaan qofka ay iyagu idin keensadaan ay ku raali noqdaan aad siin weydaan ee si sharaf la idinka soo doonay ood karaameyn weydaan gabdhihiinnu meel xun ayay ku dambaynayaan
runtii haddaad joogtaan qurbaha oo kale waad arkaysaan gabdhihii Soomaaliyeed oo niman madow ah iska wataan meel walba la tagayaan kalabyada la tagayaan meel walba la tagayaan dhintay qaad cunaya maxaan ku dhahay nolosha ka dhacay shiishadii cabaya qaarkood jirkooda ka ganacsadaan sida hadda aad aragteen gabdho kale ay ka sheekeynayaan aadin badan social media ku aragteen runtii meelahaas ay ku dambeynayaan gabadhaadii oo maalin walba waxaa daawanaysaa qaawan kuwa hadda social media isqaawiye xubinkii ragga soo bandhigaya ayaga oo caag ah oo ay isticmaalaan soo bandhigaya aabbayaal iyo hooyooyin baa dhalay waxaa laga yaabaa rag fiican oo ka soo doontay berigii hore inay ku dhibeen markii dambaan ay sidaa ku dambeeyaan baa laga yaabaa runtii waxaad ogaataan meel xun baad ku dambaynaysaan marka anigu arrimaha aan baraarujinaya waxaa ka mid a horta wiilkaa yara dhallinyarada ah iyo gabadha iscalmaday runtii ayagu yayna dheg jalaq u siinin waxaan iyo qayladan iyo buuqan iyo sawaxankan meesha ka socda idinka keligiinna ma ahe qofka Soomaaliga qaar isku jiifaa ayaa sidan oo kale markay isu guursadaan loo dhibaa loo dulmiyaa oo qof walba idinkuna dawaad ka sii xag jirtaan oo dhibaatadiinu way ka sii farad badan tahay dhibaatooyinka dadka kale ay dhexdooda isu geystaan marka idinku horta isku dubnaada ayaan idin dhihi lahaa gabadha iyo wiilka walaalkii ah arrinta kale ee fariinta aan u diraya waxa weeyaan dadka kale warkadaaya dhibaatada aad ku haysaan reeraha reerkii markaad burburisaan waxaa shaki ku jirin inaad reero dambena burburin doontaan idinka kiina u baana ka sii dambayn doona ilmihiina iyo ubadkiina u baana dhaxli doona waxa aad kasbanaysaan ayaan dhahayaa waxaan kaloo dhahayaa arrinta kale ku lamaanaynaya waxa weeyaan baryahan waxaa soo batay dhallinyarada guursanaysa ee gabdha guursanaya runtii muddo yar kadib haddana ay reerkii burburayaan inta badan dhallinyarada markaad waraysato oo aad fiiriso waxaad ogaanaysaa khayaamo inta badan dhanka dumarka ka imanaysa inay burburka reerka ay sabab u noqonayso khayaamadaas oo ah gabadhii ayadoo nin hore soo guursatay oo reero hore soo samaysatay oo laga yaabo mararka qaarkood inay carruur dhashay sida rag aniga badan ii sheegeen oo runtii nin saaxiibka ah oo kalaa ka mid ahaa 2 naagood ayuu muddo bil gudaheeda wada aroosay tii koowaad markuu aroosay gabarnimana uu ku guursaday wuxuu ogaaday inay 3 carruur adduunka u joogaan oo iyadu dhashay tii markuu iska furay oo haddana isla markiiba uu tu kala aroosay wuxuu ii sheegay isla markiiba inuu ogaaday deetii inay iyaduna ay garoob tahay markiiba iyadana maana ku sii daahinba uu iska furay akhiiran markii saddexaad tashi uu aabihii la tashaday inuu gabar saddexaad aabihii u keenay gabadhana uu ku guuleystay sidii uu rabay iyo gabarnimadkii uu rabay uu ku guuleystay marka dulmi waxaa baryahan aad u soo laalaabanaya runtii dumarkii iyo aabbayaashii iyo hooyayaashii iyagoo og gabdhihii gabadhani inay reero soo martay oo reero soo martay hore inay ninkii gabarnimo looga gadayo iyaduna ay isaga gadayso ayaguna ay ku raacayaan hadhow markuu khilaaf imaado oo ninkii gabadhii dee ay guri galaan ay arkaan inay wixii lagu ballamay ayna jirin waxaa imanaysa in gabadhii lala safto oo la yidhaahdo gabadhanadu ceebaynaya oo dagaal wadajir lagugu soo qaado runtii arrintaasi waa arrin soo laalaabanaysa baryahan dambe oo aad ugu soo badatay berigii hore Soomaalidu waxay aad ugu fiicnaan jireen dhaqanka nooca aad bay u ilaalin jireen oo gabadhu hadday garoob tahay way sheegi jirtay si ayna hadhow ayna ugu ceeboobin haddii ayna gabar ahayna saasoo kale hadday gabar tahayna saasoo kale waxay tahay baa loogu tegi jiray markaa laakiin baryahan dambe ceeb badatay waxaa ka mid ah reero badan oo burburaya oo intii markaba la dhiso burburaya waxaan ogaanay 99.something waxa weeye dumarkii intay niman hore soo maraan oo la soo guursado oo la soo furo oo laga yaabo aabaheed inuu ka soo xoolo qaatay in gabarnimo ayaduna isaga ka gado waalidkeed iyo dadkii la dhashayna ay gabarnimo kaaga gadaan kadibna aad ogaato de meesha markaad gabadhii la kulanto inayna sidii berigii dhaweed ka dhacday Turkiga wiilkii Abdul iyo Hani oo kale gabadhaas ka dhacay oo kale 8 carruur ah la ogaaday inay dhashay gabadheeduna ay 19 ilaa 18 ay jirtay arrimahaasi rag badan ayay qabsadaan raggii markay dhahaan de ku sabri waayaan qaarkoodna way ku sabraan waxaa dhacda inay dadka xataa adayg la sii muujiyo oo meesha hawshii laga dejin lahaa oo wiilku hadduu xataa wax qariyay uu kala bood kaliya uu ku joojiyay inay reerkii laftiisu dagaal iyo maaragtay xumaato badan qofkii dhallinyarada ahaa ama wiilkii la siray inay u abuuraan ani marka waxaan leeyahay
taa gabdhaha idinka umbaa ku dhibanaan doona idinka umbaana maaragtay meel xun ku dambayn doona gabar kasta oo sidaa yeesha maaha gabdhahoo dhan sama sameeyaan laakiin beryahan aad bay u badatay arrinta noocaasi runtii arrimaha iska ilaaliya ayaan dhihi lahaa waa ceeb waa arrimo xun ha la iska ilaaliya ayaan dhihi lahaa reeraha burburayana sabab inta badan 90% anigu xogogaal baan ahay dad badan ayaan ka ururiyay research aan fara badan ka sameeyay oo dhalinyaro oo gabdhihii ay kala tageen dad diin leh iyo dad aan diin aqoonin iyo dad aqoon diineed leba kulli waxa la isku raacay inay reeraha burburaya wixii lagu guursaday in loogu tag waayo meeshii rag badanina ayaga oo qabin oo aad moraalku u xun yahay bay iska haystaan oo kharash baa ka baxay iyo hadda iskaabulanimo dib uguma laaban kartid iyo waxbuu xeerinayaa oo runtii xaqiiqatan isagii gabadhaasi laga yaabo xataa inay nolol aad u xun ku wada nool yihiin oo murugo badan iyo weji gabax badan ay ku nool yihiin runtiina waxaan dhihi lahaa qofka saas oo kale ah intay labada qof moraalkoodu isku agdhiman lahaa inay kala tagaan oo bannaanka kala maraan ayaa mar hadduu shaki yimid ayaa fiican runta arrimahaas beryahan ayaguna aad u soo laabtay oo dhallinyaradii ugu soo laabtay waa in wacyigelin laga sameeyo oo dhallinyaradu u istaagaan oo runtii arrinta noocaas ee foosha xun wacyigelin laga sameeyo gabadha runtii gabdha garoob oo waxaa jira ka qiimo badan gabdhihii yaryara ka qiimo badan baa jira garoobnimadku ceeb maaha waxaa ceeb ah in intii gabadhnimo lagugu guursado aad garoob noqoto ayaa ka ceeb badan inaad noqoto reerkiinii ceeb baad u soo jiidaysaa ninkaagii ceeb baad u soo jeedi ummaddii dembi baad gelinaysaayo ummad masaakin oo waxba ogeyn oo laga yaaba labadiina waxa idiin dhexeeyey xaaladaada aan ka warhaynin waa laga yaabaa inay dagaal iskaga qaadaan ninkii marka anigu waxaan dhihi lahaa niyo wacyigelin fara badan dadku ha ka sameeyaan arrinta noocaasa gabdhuhu dhaqanka xun ee faraha badan ee beryahan aad u soo laalaabtay runtii xaqiiqatan dulqaad la'aan bay muujinaysaa waxay muujinaysaa dhaqan guur bay runtii dhaqan guur baa meeshan ka soo socda aad dhaqankii baad mooddaa inuu sii gurayo oo sii baaba'ayo oo faraha ka sii baxayo runtii waxaan dhihi lahaa arrinta noocaasa niman yahow aan u istaagna wacyigelin ah laga sameeyo culummadu ha u istaagaan ha loo sheega shareecada islaamka inay maaragtay ayna xataa qofka meher yeelanaynin hadday ninka u qariso gabarnimo inayna gabar ahayn inayna meher yeelanaynin xuquuq ku yeelanaynin sharci iyo xaq uu leeyahay aroortii inuu intuu iska soo celiyo yidhahdo nin qaata gabadhiina uu yidhaahdo lianna shuruudu waxaa la yidhaahdo gabarnimo inaad gabadha ku guursataa waa muhiim waa qasad waa shay maqsuud ah weeye runtii xaqiiqatan wiilkiina dunuub badan baa ayuu gelayaa oo isleeyahay qofka waxaa laga yaabaa inay ninba xalaal soo guursatay markay u sheegi weyday oo markay bannaanka joogeenna u sheegi weyday markii guriga la tagayna markuu yidhi maxaa dhibahoo jira gabar maan kugu soo guursaday gabar ma tihid ee u sheegi weyda runtii tuhum baa gelaya laftiisii oo uu ka shakinayaa oo ka waswaasayaa oo runtii nolol xun hadduu muddo ay sii wada noolaadaan nolol aad u xun bay ku wada noolaanayaan marka dhaqamada in laga hortago ayaan baraarujin lahaa culummada iyo dadka waxgaradka iyo dadka maaragtay waalidiintiina inay u istaagaan aabba kasta iyo hooyo walbana waxaa faran iyo walaal kastaba gabadhan idinla dhalatay ama idinka dhalatay ama idinku aad dhasheen u sheega oo ha qarinina oo qofka bini aadamka ha u qarinina saasaan dhihi lahaa